السلام عليكم أخيارتا meel walba joogtiin oo markale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kulamada caawa ee maanta laga ciyaari doono qaaradda Yurub Arsenal oo doonaysa inay ku sii dhawaato horyaalka Premier League haddii ay guul ka gaaraan Leeds United iyo kulanka ugu adag isbuucan Liverpool iyo Manchester City kulanka ka dhici doona Etihad Chelsea oo Stamford Bridge ku qaabili doonta kooxda kubadda cagta ee Aston Villa iyo xerta Unai Emery kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo horyaalka Spain farta laga saari doono iyo kulamada caawa la liiga jira iyo Juventus oo caawa ciyaaraysa xilli kooxda kubadda cagta Inter Milan ee kulan adag qaada doonaan haddii aan muuqaalka hesheen la garay kanalka subscribe noo saara haddii aynu ku bilowno kulamada maanta la ciyaari doono kulanka ugu adag isbuucan waa kulanka dhexmari doono kooxaha Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Liverpool kulanka ka dhici doona gegada Etihad Stadium saacadu markay tahay 2:00 duhurnimo labada kooxood ayaa mid walba waxay rabtaa umuur gaara laakiinse umuurtu hal dhinac ay u toosi doontaa ama barbara ay geli doonaano midaana waxay dani ugu jirtaa kooxda kubadda cagta Arsenal kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa soo gali doonta ciyaarta iyadoo maanka ku haysa inay rabaan inay guul ka gaaraan Liverpool si ay u sii baxsadaan loolanka ay ugu jiraan horyaalka Ingiriiska Arsenalna cadaadis ku saaraan Liverpoolna iyaduna waxay soo galaysaa iyada oo rabta inay guul gaarto si ay ugu tartamaan soo bixida sanadka dambe ee UEFA Champions League ciyaartu marka waa ciyaar adag Liverpool ayaa u socota inay laba jeer u xiriir garaacdo kooxda kubadda cagta ee City waa home away waxaana ugu dambeysay 2006 xilli kooxda kubadda cagta Liverpoolna 19 dhibcood laga sareeyo kooxda ay u baxayaan ee Manchester City Manchester City ayaa doonaysa afar kulan oo xiriir inay adkaadaan horyaalka Premier League nimanka ayaantaanba afar kulan xiriir ma adkaan caafimaad ma qabaan kooxda kubadda cagta Liverpoolna waxay iska ilaalinaysaa in markaan saddex gool daro tartamadoodan ay ku dhacdo iyaga oo gool aan dhalinba marka ciyaartu waa ciyaar saaso labada kooxoodba waxay rabaan mid walba gool laakiinse ciyaarta markii la ciyaaro kadib ayaa la ogaa doonaa wax walba oo dhaca kulanka kale ee jiro waa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Leeds United ciyaar ka dhici doonta gegada Fly Emirates Arsenal ayaa doonaysa inay sii dheereystaan horyaalka hoggaankiisa xilli ay haddii caawa guul gaaraan ay ka dhigan tahay inay ku sii dhawaanayaan ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska Arsenal Leeds United record fiican ayay ku leedahay 13 kulan ee ugu dambeeyay nimankan arkeen Arsenal nimankan waa iska heesataayo si wacan ay u garaacaan marka kooxda kubadda cagta Arsenal caawa waxay rabaan nimanka Leeds United inay xashiriyaan si dheereystaan dhibcaha horyaalka ku hayaan kuna sii dhawaadaan ku guuleysiga horyaalka Premier League ciyaartan waxay soo gali doontaa Maghribka 12 garoonkan waa Emirates marka kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa nimankan Leeds United guul daradii ugu dambeysay ee ka soo gaarto waxay ahayd muddo haatan fogo waa 2003 xilligaasna 3-2 waxa ku adkaatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United xilli goolka guusha u dhaliyay Fiduka marka nimanka Leeds United ayaa gool dareystay shabaqooda inay ka ilaastaan 13 kulan ugu dambeysay ee Arsenal wajaha marka Gunners-ka kulankan waa kulan u jilicsan oo nimanka inay dardaraan waa laga yaabaa laakiin Premier League koox walba waa shub kulamada kale la ciyaari doono waxaa kamid ah garoonka Stamford Bridge kulanka ka dhici doona ee Aston Villa iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulankaas waa kulan adag oo kaleeto Chelsea ayaa markaan wadada guulaha rabta inay sii haysato xilliga macallin Graham Potterna oo daneynayo kooxdiisa inuu booskan 9aad iyo 10aad aan wareerisay inuu markaan sare uga soo kaco marka kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Aston Villa ayaa ku qaadan doona kulan adag gegada Stamford Bridge marka labada kooxoodba mid walba guul ayay doonaysaa marka kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaarteedu waxay soo gali doontaa saacadu marka ay tahay 12 Maghribnimo iyadana Arsenal ayay ku waqti yihiin marka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa badisay 11 kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League iyada oo guul darada kaliya ee ka soo gaartay Villa Park ee ahayd ciyaar 2021 midaasoo Villa Park lagu soo garaacay nimankii ahaay Chelsea marka Chelsea umurteedana waan arki doonaayo kulamada kale la ciyaari doono waxa kamid ah horyaalka Spanish La Liga
kulan ka tirsanaya caawa 4 saac soo gali doona Barcelona ayaa Elche la qaadan doonta xilli kooxda kubadda cagta Barcelona horyaalka markaanba ay kali ku yihiin 12 dhibcood ay ka sareeyaan kooxda ku soo xigtay ee Real Madrid nimanku marka caawa hadii adkaadaana farqigu 15 ayuu sii tagi doona horyaalkan cid ku haysata malahan ama 15 aada ama 20 ku qabta Barca Madrid ayaga ayaa lugtooda iskaga reebayo horyaalkana ka dhacsaday marka macallin Xavi Hernandez ayaa ku guuleysan kara horyaalkiisa ugu horeysay xil ciyaareedkan kulamada kale ee jira waxa kamid ah horyaalka Serie A oo kaleeto kulamo dhowr ayaa laga ciyaari doonaa xilli ay ugu mudan yihiin kulamada Juventus iyo Verona kulanka ka dhici doona Sejil Cajuus garoonkeeda xilli Verona ay rabaan inay dhigta dhiiga u daraan Juventus ayaantan xoogaa way soo yara kaceen sidii dhibcaha looga jaraba nimanku kor ay soo aadeen Inter Milan Fiorentina ayaa kulan adag la qaadan doonaan xilli garoonkooda ay ku soo dhaweey doonaan kooxda kubadda cagta ee Fiorentina nimanka Fiorentina oo iska dhib badan yihiin oo rag kale ayaa oo qatar Amrabat iyo rag kale ayaa u ciyaara marka Inter Milan waxay doonayaan inay nimankan caawa guul ka gaaraan kulamada kale waxa kamid ah Atalanta iyo Comoros isla horyaalkan laga ciyaari doono wara khayraad muuqaalka channel garay kana subscribe noo saar